السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وين سلام ميل كستا أدونك جوكتين أصحابتي والله وإذين حيصي وحاوا بريها ومقنا سماهم صلابتي خير عما صلابتي الحمد لله ومشغولة إلهي وحكو مشغولنا نومو وايو ما تمركو حانوذا ولا ليال بدا يركا هدي إني عروسان ربان أما الشلا عروسة أما الدراد عروسة أما بشهر عروسي يعني عروسي ذا عصب قرية عصبها وحاوذا talooyin aad u muhiim ah talooyinkaasoo talooyin qoyskaada inuu baraaro lagu soo hirto yani si raago uu ku noqon kara hadaa samaysid horta waxa waaye wiilka iyo gabadha arooska ama oo cusub idin hambalyeynaya so after that kaftan waa intaas waxa waaye dadka cusub oo arooska u wada maadaama arooska wado waxa rabaa in number 1 gabadha iyo wiilka isku cusub oo guri hada yeegleelo wallahi guri marka sameynayso waxa waay gabar kasta wax badan kama taqaan gadaal ay ka ilbixi doontaa wax yar step by step laakiin tan aad kaaga caawinaysa marka koowaad waa in aad kalsooni isku qabtiin labadiin lamaano isku cusub kalsooni in isku qabtiin waaye oo kalsoonidu waa wax aad u cajiib ah ma fahamtay ina kalsooni qof ku qabtid ma sha Allah waxa waay wax aad u cajiib ah waaye وعدك تسي كلسوني لسكوية شو كلسوني ده because وقفك وحى كأركتين ما فهمت قف حد إسكري صور بعدين كلسوني كم قف لكن قف كان مركز برتين كلسوني ده إيمانيسا number 1 وأنا كلسوني إسكو قبتين number 2 وأنا إسأمينتين because أدون كنا إسكو حلتين أنت سمليان أدون كنا اللي بدينا إسكو صح شيء قصب وأمريكنا إسأمينتين وأنا محل جرا وحيابها هذا وحياب قلوبتي إن كوجرا أسكي بحسين قفك كليته وآمنوا نمبر 3 احترام إن احترامتين كلا دنبيسين اسحشميسين قف كست واجبات كيس وكصبح لجو احترامه مسؤولية ديس لجو قدريه احترام كأدو مهم وياهاي نمبر 4 تنازل إن اسكو تنازلشين كاس لبد قف markay meel isku sugayeen qof wax keensanaa arin wata qof kale waxa laga yaabaa arintaas inay isqancin haduu dhaw qofkan wixii waa raba adna dhahdid marabi midi ku taagay noqonaysa waa ina isku tanaasushin wax kasta ahaadaan waa example ko ugu yar ka soo qaada wax ugu yar oo maxaa la jira tanaasulku uu noqon karo okay guriga degantiin oo kale meel uu ku yaala meesha ku yaala jeceshahay xaajigaada muskeen wuxuu ku dhaw ka guureena meesha meel kala degeena you have to ina u accept gareysid oo dhan okay هذي واحد أجي على تي وسأل إنه مربك هاي تنازلين عادي أعرفتي أوكي تيس وراعو تنازل بري أدناه 10 وكبرنا أذوق تنازلات لكن واحد كستو ما يهدين وقت اللي بكذا لا ضعبايا ما بوي so مدك لا تحاواي لبدينا وقري اسكو مادين راساتين فملا قبتين markii familka wiilka ku soo boqdo kale you have to ina waji furan xala albaab furan lama galay waji furan la gala waa ina soo dhaweysid waa ina maxalli jir qadarisid waa in aa soo dhaweyn iyo waji furnaan laga helo oo bari sida lagu soo xiiso ma ahan markii lagu imaado in loo dhaha taasa loo ma gali kara wiilkana sidoo kale waa inuu familkaada qadariya oo maxalli jir xusmeeya waxa la ismarxabeesiin laakiin haduu familkaada xushmad u heenin hooyadaayo kale tusmaalintu kaaga soo oreysay ee u dambeysay wax taa loo dhigeen wadan kale deekaa jirto labadi bilood bishi hal mar seeta eedo inuu dhaw iska fiican tahay seeta waa sidaan lahay ma fahamtay marka yaa taas waa taas mid kaleeto oo aan rabo inaan sameeyo labada qof warqada ka aqrino ya guys waa soo qortaa u ilaabin qof kasta oo mas'uuliyadiisa ka soo baxo adii adaa mas'uuliyadaada ka soo baxdid وأصلا مسؤوليتي سكسو بحو واحدة يعمل مجرو واحد سكوب إيمانه مجرو قفك مسؤوليتي سمركو كسو بحو عادين أعتاد كسو بحديد ووحي أينا سلو الدين على عرك لكن هسي هدو مسؤولية درس مايو عادين سدو كالعاصمة ضيع دق ماشي سكي إيمانه وكلفاي إني ريسيجري بكوس لابد قف هدي سكور إيمانه بسواي واحد سكوب إيمانه حكم إذا ضيعه وحاسم فيعنه أيضا وين سكي لالسين so inta soo qodobood waa toddoba qodob mid koowaad waxaan dhahay kalsooni mid labaad is-aamintaan mid saddexaad ixtiraam mid afraad familada labada dhinac oo si fiican loo qadariyo oo la xushmeeyo oo ma sha Allah wanaag in loo haayo loo muujiyo si ay u noqotiin qoys baraara lagu soo hirto
mid kaleeto waxa waaye qof kasto inuu mas'uuliyadiisa ka soo baxo ya data ilmaha ku ilmaha insha Allah imaanaya hada ilmaha heest ilmaha ina mas'uuliyadiisa ka soo baxdi guriyaada aad dayacin marka qoys cusubta dulduleelo badan meelaha ka soo galaayo waxaas dhanaa step iska dhaxdido maxaa la jira iska step gareysid intaas qof adag ay iska dhigtid oo reerkiisa ma sha Allah intaas aaro ina caawin ila wadaay gabdhaha yar ka soo kacayo insha Allah dhamaanteen Allah naga dhigo kuwii ka faa'iideysto marka gabdhii wiilasha isku cusub intaas dhiirigelinaya inay sameeyaan pointyaashaas hada hore u taqaan ku dhaqmi jirtana good and well hadii maxaa la jira aad sameyn jirina please xajigaada ixtiraam haduu arko adoo ixtiraamaysid asaga wuu ku ixtiraamaya horta qofku wax waa la baraa maaha inuu asaga sas ima yeelay hadaa dhahdid asna wuxuu kula ayadana sas ima yeelay waxa jiro qofka qaaba ku tababaran kartaa jiro barikad hadaa ixtiraamtid xushmaysid markasta mahad celisid wax yar haduu ku sameeyo mahad celisid bari adigu ku mahad celina hatta koob shax hadaa u keento inuu ku dhaalayaa waa mahadsan tahay hadii adaa bartid waa aduus aqoon haduu yaqaanana uu ku dhihi jirno ma sha Allah laakiin dadka isku mid maaha marka waxa waaye qofka waxa uu ku tababaran kartida jiro ina xushmaysid adaa maanta adoo ku arko adoo familkiisa xariirinayo gabdhaha walaalihiisa salaamayo maxaa la jira qaraabadiisa markii ku imaan si fiican u soo dhaweynay adigu waad u sameynaa laakiin adaa qaraabadiisa maanta aad soo dhaweenino si wajiga ka xirxiratid asna sidoo kale u sameynaya dadna waxa jiro oo wiilana ma sha Allah garaad badan aqli badan ma sha Allah ha jiro waxaas u qabanaynin oo waxaas aad si xun aad xataa qof xun aad dadka soo dhaweynay ka ma sha Allah soo dhaweynay laakiin dadku waxaan ka hadlayaa qof kasto isku mid ma asma isku garaad ma isku aqli ilaahay kama dhigin soo ko waxaan ka hadlayaa oo meesha iska liito dada waxa jiro gabadha hooyadeed iska dhaaf maalinta ka soo wadanay ugu dambeysay waxaasna ma fiicno waxa way gabadha waa familkeeda ina xiriirsid asna wiilka familkiisa ina aad gabar ay xiriirsid wiilo adina gabadha familkeeda xiriirsid is ixtiraamtiin gabadhan yarta oo guriga joogto waa ina ixtiraam fuul siisid waa in aasiis kalsooni waa ina aamintid aydan inta soo kale waa ina ku sameyso soo markaas waxaan noqonaysiin aan ku dhahay qoys cirka gala oo bul dhahay يا قوسس كصوماليين ساسا ورجينا مع السلامة في أمان الله والله في صوماليين وأمين شعلها باي ملك استأدون كجوكتين